waxyaabaha maskaxdayda ka go'i ilaa hadda oo aan xataa isdhihi karo saameyn ayay ku yeelatay maskaxdaada waxa weeyaan yaraantaydii markaan muslimka ahaa waxaan ugula soo barbaariyay qisooyin cabsi leh argagax leh cadaabul qabri laga sheekeynayo iyo qiyaamaha iyo siraadka maristiisa da'deedii oo yareed iyo sheekada laga sheekeynayo oo ah sheeko horor ah ama cabsi ah waxay maskaxdayda ku reebtay saameyn aad u ballaaran oo heer xataa waxaan gaaray aan ilaahay ka aamino inuu yahay ilaahay xun laakiin ilaahayga runta ah ee xaqa ah wuu i badbaadiyey wuuna isku kaymuujiyey wuxuu ii sheegay inuusan ahayn ilaahay dadka cabsi geliyo inuusan ahayn ilaahay dadka maquuniyo oo awood u sheegto bal uu yahay ilaahay wax jecel dadkana jacayl ugu sheego inay jacayl ku rumeeyaan rabyo dadkana xorriyad siiyo midkooda diidayo iyo midkooda rumaynayaba waxaa laga yaabaa maanta inaad niyad jabsan tahay waxaa laga yaabaa maanta cabsidaas aniga igu jiri jirtay oo maanta aan ka xoroobay in cabsidaas ay kugu jirto walaalkayga iyo walaashayda waxaan kugu dhiiragelinayaa in kitaabka quduuska Bible-ka aad akhrido oo aad fiirido ood aragto ilaaha xaqa ah ee runta ah sida uu kuu jecel yahay sida uu kuu rabo sida uu kuunan argagax gelinaynin bal uu jacayl kuugu yeerayo kaalay rumay ciise masiix badbaadide kaalay rumay ciise masiix baqdinta ha kaa guurteen